بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما أركان waxaan rabaa marka horeniyo waa nasan la ahayba intii aan of taayirna city weekend ba wax ka daran ba arkaa oo soo baxay marka hore tii Afgambiski Turkiga maantana Puntland iyo Somaliland dagaalkoodan idin sheegay Soomaaliya horta Soomaaliya walaalayaal war ninka walaalka aragtida leh ninka adduunka ugu ayaan daran weey horta si sabanaanba war dagaalkan bal ka fiiri clipkayga khatarta Puntland ku soo foodle aan leeyahay waxa weeye sideed bilood koor sagaal bilood koor baan u sheegay in Puntland iyo Somaliland isdagaalayaan cid ii sheegtay bal isweydii adigu war qofka waa lagu soo laabtaa qofka noocaas waa qofka adduunka ugu qaalisan waxa la yiraahdaa niyo xalkeen waanu aragnaa waxa teegaysay oo dhan laakiin dhagihii baa idin ka doohana ilaahay dhagaha idin soo dejiyo waxaan rabaa maanta inaan halkan baaq ugu diro Puntland iyo Somaliland inaan baaq ugu diro halkana waxaan ku dhaliilayaa culimada Soomaaliyeed ee sawiradooda halkan aad ku aragtaan dhamaantood waxaan leeyahay aakhira waan idin weydiinayaa walaaladiin ina xaq ka xishootaan aakhira waan idin weydiinayaa xaq ilaahay laga ma xishoodo Soomaaliya culimada ayaa loo baahan yahay maanta inay samata bixiso inay xaqiiqda u sheegto inay gumeysiga u sheegto inay u sheegto qabiilka qofka ku dhinta halka uu tagayo حديثي حاجات كمرتان علماء ما أمضن الصوماليات أشيكتان قف قبيل كردنت قف لا إله إلا الله محمد رسول الله نكيري الرب إنه سودلو كدولي يكل الدليبة إن أهل النار يهين ما أشيكتان ومد دين تكوقن عيسو دين له الدجال كان وحن أنا هذا علماء الصوماليات أن كنا هنا يا أو مركل أو شيء إن كانت برزن دجال كوانين ويدين يا آخره dagaalka Somaliland iyo Puntland Cabdiwali iyo Silaanye hiileegan waxaan u sheegayaa qofka shacabon ogeyno qofka Puntlandeyska iyo qofka Somalilandeyska la baxda rabto ina ahli naarta hadad ku dhimato naar baa galaysa jannana ma galaysid waxaan kugu cadeynayaa arintaasayto dhulka aad ku dagaalamayso waa dhul Soomaaliyeed aniga iyo qofka magaca Soomaali lama kala kaba soo qaad xataa inaad qabiil aado waxa iskala qabiil ba jifaad degto jifadii degtay oo dib wadin oo aan dagaalkeeda ku dagaalamaynin oo kuwaas la dhilaa xataa waxa loogu tago ma labadiinaba waxa tihiin niman كبر كو دغالماي waxa tiin niman xaq darro ku dagaalamay waxa tiin dhul iidan lahayn bad weerarteen oo aad ku warteen oo jifadii lahayd xataa iidan ma artay idin weydiisnin bad ku weerarteen waxaan idin sheegay labadiinaba ehl naar baatin qofkii ku dhinto culimada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ummadda Soomaaliyeed ka wacdi galiyaan dagaalka jahliga ee qabiilka qof ku dhinto inuu naar galayo maxay ugu xishoonayaan xaqa maxay ugu hadlilayeen xaqa maxaa dhacay xaqa Ilaahay baa hadana ka xishoonayaan aw diinta ay xambaarsan yihiin aw culimada ay xambaarsan yihiin waa in Soomaaliya ay u gurmadaan culimada Soomaaliyeed oo ay u sheegaan dagaalka jahliga ay ku jiraan dagaalkan ma artay qabiilka halka uu geynayo halka uu naarta ka gelinayo jahannama fiiha inay ku waarayaan intaasoo dhan in ay sheegaan waa qof muslim qof dilay jahannama xataa oo laga ma soo saarayo sida gaalka ma iska gaalowdid gaalnimada ku dhaantay marka qof muslim aad qor u qaadanayso ma iska gaalowdid ما ودينتي بتصحن لو وذا فسري ورحقي بقى لقى حشوضي ورقبيل ورعلمادي بقى عبصوتي ورعيد إذن ناس تورستاتين مجران ورحقكو آدامة ورهدات لما تأجيش هذا لما تعلموا حقكو آدامة تصق أمد الصوماليات إن أخلديهن إن من ماذا أي قف جديد من ماذا صوماليا إن مقدس تاهي تصا إن أمد الصوماليات قبيلك كون تود قبيلك جهولد ولايه تصا إن قبيلك أي عابدين تصا قفك ما أنت قبيلك عابدين كون ما ده عبد إله اسكت لي عبد ولي إيو سيلايو إن أي مارت آخر نقول حساب تمايو قول له ويدينايو وتصا واحد آخر قرر تصا مع حشوتن حق مع أبو حشوتن إنا لله وإنا إليه راجعون علماء الصوماليات وإنا أجر متاسيد التركية وكل علماء هذه إنا من نمد الصوماليات سوء علسو وات كابتن كالنتاس مركل أيان علماء الصوماليات ملكست أجوكتابا وإنا قبيل كتتك تستان هلك وعذاب تسقناي إن قبيل كله عابد سيدي إلهي أوكلنتو إنا متى تستان بربا مركل تاسع اللي كنت وحن مركل كوعد قلنا قبيلك إنما كل يراه بولن دالين يراه بولن قرقة يسطو إنما كسومالن قرقة يسطو إهل النار باتين دعني متان والله بالله خالدين فيها باتين وتكون وارثان دجالك جوجية أنت صايد الله قفك الدنك آخر إسكربه واحد عرس والنار خالدين أنا لقاسو سارين سبتو أنه ولالك كن دلي واحد دلي إيه كن قال عبد الولي يسيناي آخر وطلابه marka culimada Soomaaliyeed baan markale ku wacdi gelinaya in talaabo qaadaan in u soo jeedsadaan mideynta ummadda Soomaaliyeed. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.